qaar ka mid ah kuwii falka argagixisada ka geystay hotelka Dusit ku yaalo caasimadda magaalada Nairobi ayaa la ogaaday halkay ka soo jeedaan. Eric Yanjui ayaa ka soo jeeday ismaamulka Kiambu iyo Faruq oo isagana halkaasi ka soo jeeday ismaamulka Yeri. Warbixintaasina waxa soo shacbixiyay waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da. laanta dambi baarista ee Kenya maalin ka hor ku howlanaa ururinta xogta iyo faahfaahinta laba ka mid ah Ragii weeraray dhismaha Dusit ee magaalada Nairobi. Warbixinta maxalliga ee Kenya ayaa ku soo warantay in Ragii weerarka geystay lagu kala magacaabo Eric Yanjui 26 sano jir ah iyo Faruq kuwaasi oo la sheegay inay ka soo kala jeedaan deegaanada Kiambu iyo Nyeri. Eric Yanjui ayaa la sheegay inuu ka yimid tuulada Ngecha oo ka tirsan deegaanka Limuru, halka Faruqna la sheegay inuu isna ka dhashay uu ku koray isku raranka Majengo magaalada Nyeri. Booliiska ayaa sheegay in Ragii weerarka geystay ay jawaabkooda ka soo saareen dokumentiyo u muuqday in xogtooda laga helay, waxaana ay dowladda sheegtay inay ka mid ahaayeen 5 nin ee shalay lagu toogtay gudaha hotelka Dusit. Inkastoo warbaahinta maxalliga ee Kenya ay sheegtay in la helay macluumaadka qaar ka mid ah Ragii weerarka geystay, ayaa haddana waxaan la ogeyn faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Ragii kale iyaguna ka qayb qaatay weerarka. Ali Salim Gichunge oo loo yaqaano Faruq ayaa la sheegay in uusan u muuqan qof xiriir la leh kooxaha mintidiinta, waxaana dadkii yaqiinay ay sheegeen inuu ahaa qof iska caadi ah oo ku noolaa nolol dhexdhexaad ah. Dariska xaafadii uu deganaa ee Weerarka ayaa Faruq ku tilmaamay inuu ahaa qof iska caadi ah, balse wuxuu caan ku ahaa oo lagu yaqaanay gaarigiisa uu ka dhageysan jiray muusiga cod dheer. Waxa uu xaafadan oo ku taalo ismaamulka Kiambu ku noolaa tan iyo 21 Maarso ee sanadkii tagay. Waxay dhawaan qaateen diinta Islaamka, waxaana la aaminsan yahay inay qaateen mabda al-Shabaab. Askari ka tirsan barayaasha kiiska Ragga weerarka geystay ayaa sheegay in labaduba la aaminsan yahay inay tageen Soomaaliya halkaas ay uga mid noqdeen ururka al-Shabaab. Ugu yaraan 21 qof ayaa naftooda ku waayay halka tobaniyo kalena oo dhaawac ka soo gaaray weerarka. Ciidamada gaarka ah ee dalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Israa'iil ayaa sidoo kale qayb ka ahaa samata bixinta dadkii ku jiray gudaha dhismaha Dusit oo dowladdu ay sheegtay in lagu soo badbaadiyay in ka badan 700 oo qof. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii ay ka geysteen hotelka Dusit ee magaalada Nairobi ay kaga falcelinayeen dhawaaqistii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u magacaabay magaalada Qudus caasimadda Israa'iil.